munaasabad aad loo soo agaasimay kana dhacday galbeedka magaalada London ayaa waxa lagu soo dhaweynayay lagu sii sagootinayay Nurul Huda Ali Banford oo ka soo qayb gashay bandhig fareed lagu qabto magaalada London sanad walba oo magaciisa la yiraahdo Somali Week. Munaasabadda ayaa waxa soo abaabulay gabdhaha reer Somaliland ee degan wadankan UK qaybo kamid ah gaar ahaan magaalada London. Sidoo kale munaasabadda waxa ku sugnayd safiirkii hore Somaliland Marwo Ayaan Cashuur. Munaasabadiisa oo dhacdayna waa tan. على أهلي أصحابي أجمعين دمان مرتي شرفت قيمها بدن عاوة كسو قيم كشيء حفلة قروح بدن سدا قيمها بدن لو سوا قاسمي ورنتي أنا قم هذا علنيو أنتي كقيم قاطعي سو دوينتا ولاشين هدا علي بنفس أبوان كني وينا إلهي نحريتي تنا كورابية وكسو شيء قويس قيمة ويكله دمان تذكر سوماليلاند ودلائي هالجماعي وينا أو ذكر الإنسان على بنفس أديات بان فرحان وينا يقول هاي إن أنا عاوة قومشوكا هذا أما بعد هيو حفلة قروح بدن أين ولا شيء كسور. بسم الله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام كبعدي شرفات وين يقيم وين بيتي عاوين ليقوم موسى أنيقا كمذا وضياش يوكي إن حفلة قيمة له وقاية له وشرف له النقطة قفك يقول ريه كهضله وحن سيجارة وقوم هضلقيا عدي سواء باب الشيء حفلة قيمها هي شرفت له اللي قوم موسى هدى علي حسن وأكتر قيمة كله وليبا أنيقو قفهان شخصيا يدنا وان أقوم في عنو لا يحي أبهذا مجاهد كي وجوهناها وشرفيا كرام الهان ولا شقيي سومالي دو حتى راجد من لمرتوج محي من لمرتي اللهم حرستين مجاهد علي حسن وحا قف كرامديس يد نمديس شرفتيسو أنا دم يصلحين شقة قبضتي شقة قف دومر أو وليبا قبري قبل كرت معها سومالي الآن لقى صوب لها قلبيد إلا وحي مرتا بورها يدو تاريخ يرادين يسا رقبوا مري كراميال والبا لكن إن أنتم ويكدوا انتهي أذيك قارة ينرول قارة يسيقارة يوسعطا إن أنتم قفك دومر كرتيدو سيسو إني بورها فوشو أو أي رادي سر وحي ما شايا لي وأرأى هذا كنت برك الأشياء وأنا السلام يا مرتي شرفتها كسو قيب قشي حفلة قيمها بدن له هدا بان سيجارة وسلام يا وحن سيجارة وسلام يا فنان كينوين عبد النور الله يا دمان فنانين تلفدي ذا وقدودين كويه هاي هذه أدبان دي سلام يا هذي سيجارة أنا نوع مرتي نوع تعالى ودل أبوان ويان إلهي هنا جارسي هلكو أبهت شوقي أباها يويان ونكدك سننا ونكور سننا حنقول يهود سودو سيد الله الشيخي أبهت وحوها معلم وحوها هالجماع ودتكي أسو هالجمي دلكن أيوها إلا ما دل حكومي وتشيل كمان دير لجيه وحوها مجاهد وحوها أبوان
ereyadiisu aad iyo aad u culus tahay oo kuwii halganka iyo jacaylkaba intaba isugu jira waxa ilaahay mahadiya waxaan soo dhaweynaya aniga hadalkaygu waa soo dhaweynuun aad iyo aad baan u salaamaya horta marti sharafka aadka u qurux badan ee hortayda fadhida waxaan soo dhaweynayaa walaashay waana sii sagootiyayaa huda dee taariikhdii laga sheegi lahaa iyo hadalkii Siciid Ucud baa dhameeyey huda waxaan ku jecelahay dadaalkeeda kartideeda iyo sida isugu xil saartay wax aan dawlad dhamayso xil saari karin gacantayda ayaan ku qoray baaragraafkii Allah naxariista marxuum Cali Banfas wariyashii diyaariyay warkaasi wuxuu ku sheegay inuu yahay awaan laakiin aqoontu u lahaa waa yareed kuma sheegin inuu ahaa nin aqoonyahana iyo kaalintii ku lahaa dowladda Soomaaliyeed markii uu ka ahaa shaqaalaha Allah yarxamay Cali Banfas iyo aqoon sare uu ahaa nin mufakir uu ahaa nin wuxuu ahaa hal adag oo bareero leh oo wuxuu doonayay inuu sheego ala gaban buu ahaa magaca kula baxaan ku daro bandhigii fankii suugaanta Soomaaliyeed markii la qabtay ee bixinta la sameeyay ee sida golaha murtida iyo madadaalada tiyaatarka waxyaalaha Soomaali lagu bedelay tartankii aqoonyahanada iyo suugaanta Soomaaliyeed ka qayb galeen ayuu ka qaaday Banfasna waxay ka dhigan tahay bandhiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed magacan iyo soo dhaweyntan aynu maanta u sameynayno kuma helin aabaheed laakiin iyada la timid hal abuur iyo talent ay ilaahay ku abuuray oo ay ku gaadhay halka ay maanta joogto marka waxaan leeyahay waa qayb ka dhineed dumarkeena iyo haweenkeena iyo gabdhaheennaba inaynu hudoo kale halka ay joogto ay gaaraan waxaan leeyahay hore uga sii soco in badan baanu halkan siyaasiyiin iyo rag ku soo dhaweynay caawa aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo inan kamida hablaha reer Somaliland ugu mudan aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay halka aad joogto hore uga sii soco intiina soo qaban qaabisina waxaan leeyahay jasaakumullah khayr munaasabadan iyo in ka badan way u qalantaa inantan ma sha Allah aad baan idin wada salaamay assalaamu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Qadar Xasan Cali Gaad Somaliland ay sugtay sama ku guuleyso safar baan socdaal dheer ku maray waan saldhigi waayay saakana siraadkaan arkiyo saraha nuuraya safsafloo istaagiyo codayn sinaan lagu dhiibay saddexdiinan xusbiyee tartamay sama ku guuleysta siriya ceeb ka dhowrsada qabiil la isku kala saaro sunta cadowga kala saar qabiil waa silicadiida waxaanu ka mid ahaa macallimiintii intii aanu soo maray sanado badan oo wax baranayay run ahaantii ugu qiimaha badnaa oo soo saaray arday run ahaantii uu ku beeray aspiration ama maxaan ku idhaahdaa vision sare iyo isagoo u adeegsanaya suugaantii iyo maaragtay tikniigii ilaahay siiyey khibradda uu lahaa oo uu maaragtay nagu beeray bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madasha waa salaamaya quruxda badan leh ee lagu soo dhaweynayo intaanu adeerka u nahay ee Huda Cali Xasan waa soo dhaweynaynaa waana sabootiyeynaa dhammaantiina waa salaamantihiin ujeedada waxaanu ka nimid anagu Bristol baanu uga nimid anoo ku hadlaya afkii Bristol salaam baanu kaaga sidnaa dhammaan reer Bristol oo dhan ayaanu kaaga sidnaa Allah yarxame aabo wuxuu ahaa ragga ugu jeclaa ee ku soo dhaweeyay Bristol ayaan ahaa rag badan baa soo dhaweeyay magaaladii ugu jeclaana way ahayd waanu nala sii dardaarmay sidoo aanu og yahay inuu dhimanayo ayuu nala sii dardaarmay wanaag buu nagula dardaarmay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa hablihii caawa xafladan soo qaban qaabiyay runta aniga maxaa la yiraahdaa Huda aad iyo aad bay ila weyn tahay uma arko anigu aad iyo aad baan iskugu dhaweyn aabaheed family asxaab baan wadanahay Cali Banfas hore waa tuu martida igu ahaa aniga halkan ku casuumay wuxuu ahaayeen abwaaniintii runtii Hadraawi Gaariye iyo Cali Banfas iyo dadkii dalkayga baray anigoo yar oo dhalinyaro oo dibadda ku koray
haddana dalkayga jeclaysiiyey haddana halgankayga jeclaysiiyey haddana taariikhdayda jeclaysiiyey marka abaal weyn baan u hayaa marxuumka ilaahay jannadii ha geeyo ilaahay abaal ha uga dhigo maaragtay dadaalkii uu noo soo galay ummaddiisa u soo galay maanta huda iyo waxaan malaynayaa cabdicasiis guud caddana waad maqasheen oo labaduba marti ahaa dad badan baa lahaa oo dhalinyaro oo maxay qabataa oo buugaag oo maxay maalmihi casuumay runta waa dadka waxaan ugu xushay nuura alhuda cali banfas waxaa weeye kartideeda daljacaylkeeda dadku way isku duubayaan oo waxay leeyihiin maxaa la yidhaahdaa oo deegaankii waxaad qortay horta cimilada iyo dhibaatada ka taagan cimiladu waa wax dhibaato aad iyo aad u weyn iyadoo yar bay ku baraarugtay in cimilada iyo dhibka iyo droughtka iyo waxa haysta ummadeenna in ay wax ka qabato xayawaankeenna wax ka qabato deegaankeenna wax ka qabato waxay noogu huda nuura ay suuro gelisay inay sawiradii dhalinyar dadkii hargeysiya burciyo berbera ku korayoon arkin oo garanayn oo dad reer awdala bay tusaysaa goobaha reer awdal ay caanka ku tahay dhalinyaradii reer somaliland bay bartay dalkooda taariikhdiisa geed walba iyo maxaa la yiraahdaa wax walba iyada ka sheekayn doonta insha Allah laakiin inay ku baraarujiso marka waxay ku mudan tahay waxa weeye buug bay soo saartay buuggii nuura huda wuxuu noqday wajigii qaranka madaxweynuhu wax kale ma hayo intaas uu qaybiyaa waxay soo kiciyay caaway keenay waan joogay magaalada 4 bilood meel lamaan tagay taariikhdeeda dad ku suntan baa caawa xaflad loogu qabtay South Hall waxaan marka hore hambalyo siinayaa gabdhaha soo abaabulay fadhigan caawa fadhino iyo casuumadaba aad iyo aad baan u salaamayaa gaar ahaanna weliba hablaha Somaliland haybad gaaraan siinayaa sababtoo ah qof kastoo yimaada sidaas ugu taagay in la maalintu bax kole salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kole hadal badan umaan kicina laakiin de waxaan doonayaa inaad ila soo dhaweysaan oo ku soo dhaweynaya mikrofoonka huda cali banfas shoodhaha iga yaraa huda welcome okuka thank you waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu watacaala inoo ogolaaday inaan caawa halkan isugu nimaadno waxaan marka labaad mahad u celinayaa ayaan maxamuud cashuur wax waloo kale marka laga tago she is my friend caawana waxaan aaminsanahay ilaahay qadartiisa marka laga tago waxa ay suuro gelisay inaan halkan idinku imaado oon ka imaado Somaliland oo aad fursad u heshaan inaad ila kulantaan anna aan fursad u helo inaad ila kulmo marka labaad waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo 2 bilood iyo bar baan joogaa imika Ingiriiska joogaa marka laga reebo maalmihii aan ku jirnay wareegga aan magaalooyinka kala tagtaynay intii ka dambeysay waxa magaalada London madaxooda saaranahay oo sida boqorada ii ilaaliya Nuura Yuusuf oo xaga dambe fadhida iyo xaajigeeda walaalkay marna seedigay Naasir Cunjuf oo runtii ah shakhsiyad gobonimadiisa dadkoo dhan isku raacsan yihiin waxa kale oo mahad celinayaa hablaha soo qaban qaabiyay iyo dumarka waayeelka ee u badan ee dooyinkay ee soo qaban qaabiyay xafladda waxaan u mahad celinayaa ragga tolka ah iyo ragga tolweynahayga ah asxaabtayda leh abtiyaashay leh Somaliland aan jecelahay dhulkeeda kala duwan ka yimid waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo caawa halkan yimid oo ku yimid ixtiraam uu hayo aabahay Cali Xasan Aadan Cali Banfas inta aan Cali Banfas garanayna aniga ixtiraam ay haysa ku timid iyagana waan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Shaqale Home Cable TV
London.